بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u maleynayaa in ay maqlaysaan magacaygu waa Ubax Xaaji Dahraan degan Seattle 30 sano 31 sano waxaan ahay hooyo intiinaan meesha joogtaa dhibaatada isoo gaartay ee iga soo gaartay qurbaha inaas idin soo gaarnaan qiyaasay dhibaatada waxaan ku waayay curadkii waxaan ku waayay cunugayga yara newska hadda warka ku jira ee ah cunuga yar ee laga soo qabtay Kenya haddaad sii dhagaysataan qaybta ugu dambaysa waxaa ku jiro 17 jir lagu dilay Kenya markaan waayay labadaas qof oo aad iigu weynaa waxaan go'aansaday community-ga inaan waxyaabo badan kaga digo qaybta ugu weyna waxay tahay aabayaashii baa maqan aniga idin la hadlaya calafku waa cajiib waxa dhacday in aan guurkiiga burburo laana marka aad hooyo tahay oo uu guurkii ka burburo oo masiibada ay ka soo gaarto caruurta naftarkeeda ee qofkii kula noolaay partnerku kula ahaa uu u noqdo ilmihii yaraa ee aad dhashay kaba soo qaado hooyo waxaad ahayd kaligeeda oo ilmo korsanaysay waxaad guursatay nin baad guursatay hadduu ilmahaagii uu ku noqdo masiibo uu ku noqdo curadkaygii waxa banaankaas dhig wuxuu ahaa wadaadkii aan nolosha aniga aan la wadaagay waa qiranaya publiga waan ka leeyahay maanta cunugii yarka ha isagoo shaqo ka soo baxay baa maalinka dambe waxaa dishay gabar Soomaaliyeed oo noqotay qowmuluud waxa laga yaabaa in ay dulmiyaan ayaga wiilasha Soomaaliyeed kuwa kale ama ka baxsaneeninba mid qowmuluud noqotayna anigu waxaan isleeyahay way dulmiyaan gabadhi maalinka dambe way qaadatay halbowlaha goysay 6 bilood buu kooma ku jiray dhaqaatiirta waxay dhaheen caaqibad dambe ma yeelanayo alxamdulillah hadda recovery ku jira maxaa ku soo haray 17 jir cimro aan ka keenay halkan airport aan ka soo degnay dhalinyaro ka haysatay 2 bilood oo dhalatay oo dhamaatay baa raadinayay naagihii dariska ilaaha baa ka haystay guryahooda ku haysteen wixii dahab aan haysay hanti aan lahaa waxaan geeyay markii dawladdu waxba ka qaban weyday oo 17 jir uu yahay minor uu yahay dawladdu waxba ka qaban weyday maalinka dambe waxa la igu dhahay cunugaaga wuxuu yaalaa isbitaal haddaan cararnay oo aan tagnay nolol badan kuma jirin brain death saasu ku dhintay kaasna dadkii dila way joogan magaalada alxamdulillah in kastoo la soo qabto dad loo soo xiro midkan hadda ku jiro newska uu qayb kaga leeyahay oo wiilkii la saarna uu darawalka ahaa gaarigaas haddana dhib kuma yara in haysta reer Seattle haddaan nahay